السلام عليكم دمان أصحابته شرفت له جمعة ونكسن ساكا وحان ورئيسكم وريه محمد عبد الرحمن قاتا أو مدوينك ودن بيي كشقينيي إذا عدي عالمي هيدا VOA لا أنت أفك الصومالية جارهان دولة دقانك الصومالي دا سيدا دو لسعوتان أما هدا وادوغان لسان وحا سيقود لو حري إذا عدي عالمي هيدا VOA وضدنا كشقينيين dad Soomaalida badan ka shaqeynayeen gaar ahaan Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu deegaanka Soomaalida wakiil uga ahaa deegaanka Soomaalida ugu warramay Maxamed soo dhawow bal adigoo nooga warramaya idaacadaasi sidaad ugu beertay muddada ka shaqeynaysay waay aragnimada iyo khibradda aad ka korodhsatay iyo waliba habkii xilitaankeedii soo dhawow waa dhawahay Cabdiidow aad baa u mahadsan tahay wareysiga saaka adiga la yeelanayso idaacada VOA iyo xiritaankeeda anigu waxaan ahaa wariye kamid ah wariyaasha ka howlgalay idaacada VOA as a freelance journalist wax la yiraahdo wariye madax banaan baan ugu shaqeynayay inta badan wariyaasha uga soo horreeyay VOA gobolada Soomaalida oo wariyaal iska strangerista loo warka gata ma aha wariyaal rasmi ama contractorisa marka waxay gataan baa marka warkay diraan baa loogu dhuftaa lacagta markaan waxaan kamid ahaa 5 sano u dambeysay wariyaashii deegaanka ka shaqeynayay waliba wakiil wadareedkii deegaanka Soomaalida u joogay muddadaasi shaqooyin badan baan ka qabanay VOA-da dad badan baan ka bartay oo haday tahay kuwii stuudiyaha jooga madaxda khibrad badan baan ka helay dhinaca wararka qaabka loo diyaariyo dheelitirka hanaanka wararka loo tafatiro waxyaabo badan baan markaa ka kororsaday VOA-da way seed ugu beertay la xiligaad ku beertay waxaan ku beeray kowdii bishii January sanadkii 2021 xilligaas oo tartan badan uu jiray oo dad badan oo markaas CV-yada la ururiyay kadibna la sameeyay selection-kii ku soo baxay anigu markaa way si fiican balaarinta xidhitaankeeda waa la xidhay sikadiisa bal xaaladdeeda naga hor inta aan kaaga warman xidhiga VOA-da laanta af Soomaaliga VOA-da waxaa la aasaasay 2007 bishii February taariikhda Europeanka halka qaybta social media-ga dib ugu soo beertay 2013 intaas waa intaas qaybta guud ee VOA dhamaanteed xilliga la aasaasay waa 1942 baa la aasaasay marka idaacadu waxay idaacad qadiimi oo in badan soo jirtay luqado badan ku baxayeen in ka badan 50 luqadood waxa uu dhigay si waa ma dhageystayaal waa 354 milyan toddobaadkiiba marka waad garan kartaa idaacad noocaas oo in hal mar hadii la xidho saameynta ka dhalan karto way wariyaal Soomaaliyeed inta leeg baaqiysan ka shaqeynaysa hawshaas ku dhawaad wariyaashu waxay gaari karaan ilaa iyo marka la suugayo macal kuwa gobolada ka soo horreeyay 100 wariye kor bay u dhaafayaan ma dhigi karaa wariyaal Soomaaliyeed way balaarinta xidhitaankeeda wuxuu hordhacaya ma la bixiyay masikadiisa oo bay ahayd maxaa saameyn laakiin saxafiyiinta dadka shaqeynaya ay kala kulmeen maxaa rajaa oo hadda lafteeda jira arinta xiritaankeeda ma jirin wax digniin oo la bixiyay in idaacada la xirayo sida caadiyan waxay ahayd sida sharciyan in digniin la bixiyo oo la dhaho xilliga idaacadu had yeer garoodo waa la xirayaa waa laga maarmayaa ama hadii kale la laamaha qayb baa la xirayaa laakiin hal subax uu ku waabiristay shaqaalu email u soo dhacay oo lagu yiri ka dareera shaqada ilaa mar dambe taas markii dambe qaadatay muddo kadibna markii dambe maxkamadda isla galay maxkamaddii aad way socotay hadda markii labaad baa la isku jiraa mar saddexaad baa dhiman shaqaalii contractorska hadda ugu dambeeyay waa la kala diray toddobaadka hadda ugu dambeeyay kuwa kale permanentana waxaad moodaa in maalmaha soo socdo in la kala diri doono VOA ma muuqato rajaa in la soo celiyo inta Trump joogo way bal habka lagu xidhay iyo mu'amaraadka lagu xidhay laftigeeda xog ahaan waxaad iga sheekeynaysaa in idaacada iyada oo shaqeynaysaba lafteeda shaqaalaha laga diray balaarinta lafteeda hadda dib ugu noqotay arintaas shaqaalaha oo shaqada soo galay oo xilliga shaqadii isu diyaarinay qaarkood wararkii iyo barnaamijyada isu diyaarinayaan email soo dhacay in cid walba oo shaqaale kamid ah VOA laamaha kala duwan saacada laga bilaabo inay fasax tahay guriyada aadaan ilaa mar dambe saasay lagu wargeliyay way dad Soomaaliyeed dadka Soomaalida waa dad dhageystayaal oo idaacadaha BBC iyo VOA iyo dhageystayaal badan waxaan jireen dad inta la badhigsan tiraaslada maxay si faa'iidooyin ku qabeen Soomaalida markaan eegno geeska Afrika waxay ka ahaayeen dadka ugu yaani audience-ga xagga marka loo dhageystayaasha ugu badan ee ku xiran idaacada VOA-duna waa idaacad ku suntan ama la dhihi karo waxyaabaha ay ka shaqeyso wararkeeda waxay ku bees gareysaa dheelitirnaan tusaale VOA-du ma qaadato hal dhinac warkeeda waa in dhinac kale la eedeeyay ay ka qaadato marka waxaan dhihi karnaa dad aad u fara badan oo Soomaali ayaa ku xirnaa geeska Afrika dadka laftirkoodana kulay hadda meesha way ka baxday Joyce kale lama haystaan hadii Ilaahay soo celina waa arkaynaa oo Trump marka go'aankaas uu ka noqdo ama xilligu meesha ka tago khayr baa u rajeynaya dhageystayaasha laftirkooda way adiga hadda maxaa ku qorshaa warbaahin labaad dib ugu laabato maxaa hadda qorshaagoos ana kulay waxyaabo badan baa qorshaysan bal xogaa inaan ka yaraysto xagga warbaahintan yar rabaa inkastoo rabo inaan waxyaabo fara badan oo aniga gaar inaan qabsado laakiin hadda dhinaca warbaahinta waan ka digaroonaya hadii la yiraahdo inaan nasto way aad badan sanadkaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo ah wariye ama wakiil wareed ki idaacadii VOA Soomaaliya halkan waxaa nagula sugan Maxamed aadan kuluc
oo ah isagu dhageystayaasha qadiimiga ee muddada dheer dhageysanayay bal sida uu isagu xogtaasi ku helay idaacadda xidhitaankeedii siduu u dhageysan jiray arrimaha lafteena yarka weydiinaa maxaad soo dhow iyo mar kale waraysi kale cabdi ciid aad baad mahadsan tahay runtii horta aniga waxaan ku dareemay subaxda oo gaata ka sheekeynayaba markaan masaajidka ka soo noqdo sideeda wayna timetable leedahay waqtigii salaatuleelka waqtigii salaada subax baan idaacadda si oo dhageysan jiray si markaas aan ula socdo wararka caalamka idaacaddii baan waayay oo radio yar baa ii yaala xaafadda radio ka xumaanaysa jigjiga adoo jooga iyo radio isticmaasha aad iyo saddex radio baan isticmaalaa kadibna markii dambe anagoo wakaaladda joogto wararka adduunka baaraya ayaan arkay idaacaddii la xiray runtii aad iyo aad baan u naxay si ninka shaqayn jiray oo kale gaataa ma wanaxinba waayo waxyaaba gaataa sheego isaguma igu horreyn jirayba aniguma ogeynba oo waxyaaba inkastoo inagu dee wakaaladii nahay waxyaaba badan oo muhiim oo deegaankeena sheegayno haddana waxyaaba barayfada buu gaataa ka sheekeyn jiray marka dee gaataana dee waa nin magaranaysa wakaaladii nagala shaqayn jiray oo dee saamayn baynu ku lahaa nin saaxiibkeena marka runtii dee saameyn weynba dadka soomaalida ku yeelanaysaa sababtoo ah BBC idaacad soo raacda bay noqotay waxay noqotay idaacad meel walba laga maqlay oo shorti way isku shaqaynaysa waxay noqotay idaacad kale oo madax bannaan naas labaad bay noqotay marka hore BBC la nuugi jiray kana nuug bay noqotay markaas saameyn weyn bay dadka Soomaaliyeed ku yeelatay dhul badan bay FM waxaan ku soo gaadhay sida Hargeysa Muqdisho Boosaaso Gaarisa Djibouti inagu baan FM ku dhageysan jiray marka idaacad dad fara badan ku xidhnaayeen oo waliba anigu aan si gaar ah ugu xidhnaa oo tebi doono gaata inay soo noqoto anaba ka jecel way bal dhinaca BBC oo muddo badan dhageysanaysay iyo idaacaddan wax kala duwanaansho oo xagga habtabinta iyo wararkooda kugu kala duwanayaan ma jira way kala duwan yihiin oo waxa kamid ah waxaana BBC sheegay bay VO sheegaysaa wax BBC sheegtana VO sheegi mayso taasay ku kala duwan yihiin waayo waxa laga yaabaa markaad baadiyo joogto shorti way wax ku dhageysanayso internet aadan haysanin war aadan BBC ka maqan inaad VO ka maqasho siba waxyaabaha maaragtay bareefadka degdega bay VO aad u soo deynayaan laakiin xagga shorti way markaad ku dhageysanayso xagga maqalka BBC ayaa ka xoog badan markaad radio-ga taagto oo taag ku dhiso gaataa wila dareemaya waxay mid kale waxa jiray niman maaragtay BBC-na ka shaqeeyo VO-na ka shaqeeyo oo iyo ka mid raga waxa kamid ah magaranaysa Maxamed Xaaji Xuseen oo VO-da ka tirsanaan jiray markii dambe BBC tagay markii dambe Allah xaafiyay xanuunsaday waxa kamid ah Cabdiraxmaan Xaynte oo BBC ka shaqeeyay sana ka shaqeeyay waxa kamid ah Cabdiraxmaan Yarow Maro madaxa laanta Soomaaliga kuwaas baa kamid ah adu xogaas oo dhan idaacadda dhageyskeeda ma kula socdo waxa soo dhageysan qoso halka waa dad fara badan oo naqaan inaan aniga ay aqoon laakiin gaata waa ka weynaa ninka adigu ka weyna garashada ka weyn marka waxyaabo laga yaabo gaata ku dhisdan khibrad yar maaha waa nin jaamici ah waa nin muxtaram ah waa nin halkeena kala shaqeeyay hadda qudheeda inoo yimaada runtii idaacaddu aad baa loo tibcay cabdi ciidow